Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaab qiimaha qaayaha badan aad iyo aad baan idin salaamayaa meel walba dunida kala joogtaan. Sidaad la socotaanba waxaa noo socday barashadeeni batanta biiga. Waxaan soo dulmarnay argumenteeni koowaad dhammaan manual ahaantiis iyo su-aalaha anigoo soo dulmarayno oo af Soomaalina ku fasirayno. Haddana waxaan sameynaynaa quiz-kiisa insha Allah binaar kariim. Quiz-kiisa argumentaha koowaad qaybtiisa sagaalaad ayaan ku jirnaa. Okay, quiz-ka argumentaha koowaad qaybtiisa sagaalaad insha Allah binaar kariim. waan dhamayn doonaa kadibna waxaan sii bilaaban doonaa cashiradeena xiga. Waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iidi doontiin insha Allah. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. YouTube-kana subscribe hala saaro. Aan bilaaban marka cashirkan. Nella strada rappresentata per ogni senso di marcia la corsia di centro è dedicata di norma alla marcia ordinaria. Wuxuu yiri nella strada rappresentata wadada meesha ka muuqato yiri per ogni senso di marcia waxaa la dhowr koorsoo dhinacan u socdo iyo dhowr koorsoo dhinaca u socdo. Okay, la corsia di centro koorsada dhexe uu yiri è dedicata di norma sida caadiga waxaa loogu talagalay alla marcia ordinaria marshada ordinaariga. Falso waay perché corsia di centro iyo sinistra sorbasso waay, quella di destra waxaa marcia ordinaria. Okay, se un pedone con bastone bianco attraversa la strada fuori delle strisce pedonali bisogna suonare il clacson per sollecitarlo ad attraversare rapidamente. Allora, se un pedone con bastone bianco uri haddii uu qof wato ulbukoorad cad attraversa uu goynayo la strada wadada fuori delle strisce pedonali uu ku goynayo wadada meel ka baxsan attraversamento pedonalaha bisogna waxaa loo baahan yahay suonare inaan hoonka yeerino. Suonare inaan yeerino il clacson hoonku waay. Okay, per sollecitare ad attraversare rapidamente si qofkaas uu isku dedejiyo ama laamiga uu farajiyo camal. Falso waay, non possiamo suonare. I motocicli hanno cilindrata superiore 50 cm. Allora motocicli waxay leeyihiin 500 cm, secondo me è vero. I ciclomotori possono circolare a velocità di 60 km/h fuori dai centri abitati. Ciclomotori possono circolare waxay isticmaali karaan speed 60 km/h saacadiiba. Okay, fuori dai centri abitati, dai centri urbani, meelaha ka baxsan meelaha la degan yahay. Falso waay, ciclomotore 45 waay. In un passaggio a livello si possono trovare le semibarriera. Sidaan hore idinkugu sheegayba in un passaggio a livello meelaha oo tariimanka ay ka goynayaan si possono trovare waxaan kala kulmi karnaa le semibarrieraha. Beer waay, hore idinkugu sheegay semibarriera, la luce rosso, distanziometrico, incrocia, Sant'Andrea, waxaas oo dhan. Okay, sono consentite le gare di velocità anche se non autorizzate purché partecipino solo 2 autovetture. Wuxuu yiri sono consentite waa la ogol yahay yiri le gare tartanka di velocità oo speedka anche yiri xataa se non autorizzate xataa hadaan sharciyeysaneyn yiri purché kaliya waxaa naga badan yiri purché sababtoo yiri partecipano waxaa sameynaya yiri solo kaliya 2 autovetture, 2 autovetture. Falso waay. Il conducente che vede i pannelli in figura sta seguendo un autocarro con massa a pieno carico superiore 3.5 tonnellate. Vero waay, perché il conducente idraulico che vede markuu kaasoo arkaya pannelli in figura paneelahan sta seguendo wuxuu daba socdaa yiri un autocarro gaari xamuul qaadaya con massa a pieno carico kaasoo culeyskiisa tankiisa superiore uu ka badan yahay 3.5 tonnellate. Baalkan waxaa lagu dhajiyaa baabuurta waaweyn oo xamuulka qaada. Okay, marka la risposta è vera. Okay, bisogna usare maggior prudenza nei confronti dei conducenti di autoveicoli elettrici. Bisogna waxaa loo baahan yahay usare inaan isticmaalo maggior prudenza taxadar badan nei confronti marka aan la kulmayno dei conducenti darawalada di autoveicoli elettrici baabuurta elettriga wada. Non c'entra niente secondo me. La strada rappresentata è composta da 8 corsie. Allora wadada noo muuqato yiri waxa uu ka kooban yahay 8 course. Allora 1 2 3 4 5 6 7 8. Vero waay, perché inta 2 course waay, inta 4 course waay, intana 2 course waay. Vero. Quando si viaggia in filo
in fila con altri veicoli è opportuno spostarsi al centro della carreggiata per controllare la situazione del traffico. Allora, quando si viaggia marka aan daba socno ama aan isla safarnahay in file con altri veicoli baabuur kale ayna hor socdaan ama ayna daba socdaan oo leen dheer ah, è opportuno waxaa wanaagsan uu yidhi spostarsi inaan isu badino al centro della carreggiata dhanka wadada dhexbartankeeda per controllare si aan u fiirino la situazione del traffico xaaladda trafficada. Cosa c'entra? Falso. È vietato sbargare fango e detriti sulla strada con le ruote sporche dei veicoli. Ok? wuxuu yidhi marka è vietato waa mamnuuc yidhi isbarjare inaan ku daadino fango dhiiqo e detriti iyo waxyaabaha lamida wasaqda sulla strada wadada con le ruote sporche taayirada oo wasaqa ama dhiiqa macnaha xaafadaada markaa kasoo baxday oo kale taayirada dhiiqi waxaasaa ku dhegan sooma laamiga inaan ku wasaqays mamnuuc waa intaadan laamiga soo gelin waa inaad tirtirtaa camal sida ay sheegeen aniga waxaas ma naqaan. Okay, beer waaye. Il passaggio a livello è caratterizzato dalla presenza di un attraversamento autostradale. Il passaggio a livello caratterizzato waxaa lagu garanayaa dalla presenza marka aan la kulmayno di un attraversamento goos meelaha laga goynayo autostradale. Falso. Il salvagente facilita la salita e la discesa dei passeggeri da tram, filobus e autobus. Il salvagentaha uu yidhi facilita wuxuu fududeynayaa la salita inay koraan e la discesa inay ka degaan dei passeggeri dadka da tramka filobus iyo filobus oo autobuska beer waaye. I motocicli sono veicoli a motore con più di 2 ruote. I motocicliyaashu yidhi sono veicoli waa baabuur yidhi con motore kuwaasoo motorka ku xiran con più ay ka badan 2 ruote macnaha taayiradiisa sono veicoli baabuur motor ku xiran con più oo ka badan di 2 ruote laba taayir wax ka badan. Falso waa. Fuori dei centri abitati su una stessa corsia possono circolare affiancati 2 ciclomotori. wuxuu yidhi fuori dei centri abitati meelaha ka baxsan meelaha la degan yahay su una stessa corsia hal course possono circolare waxaa isla mari kara yidhi affiancati ayagoo is dhinac soconaya ama isgarab soconaya 2 ciclomotori 2 ciclomotori. Falso waa perché koorsada hal qof aa loogu talagalay xataa haddaa baaskiil wadato halkaas shay lay maraayo. Okay? In una zona a traffico limitato è un'area nella quale può essere limitata la circolazione solo a particolari categorie di utenti. Una zona meel yidhi traffico limitato oo traffic laga xadiday oo aan wada geli karin gaari kasta ama saacad kasta la geli karin è un'area waa meel yidhi nella quale kaasoo può essere ay noqon karta limitata in laga xaniba circolazione inay galaan solo keliya particolari categorie di utenti baabuurta qaar ama dadka qaar. Vero waaye. La corsia può essere destinata ad effettuare sorpasso. wuxuu yidhi la koorsada può essere waxay noqon kartaa destinata mid u qaabilsan ad effettuare in lagu sameeyo sorpassi in lasku baaso. Vero waaye perché corsia di sinistra e destra sinistra iyo centro iyo waxaasoo dhan sorbassa loogu talagalay. Okay? Il conducente che vede i pannelli in figura sta seguendo un rimorchio o semirimorchio per trasporto di cose per massa a pieno carico superiore 3.5 tonnellate. Allora, il conducente idraulico che vede markuu arko i pannelli in figura calaamadan sta seguendo wuxuu daba socdaa un rimorchio ama semirimorchio per trasporto kaasoo qaadaya di cose waxyaabo con massa a pieno carico culeyskiisana uu la egyahay ama uu ka badan yahay superiore 3.5 tonnellate. Vero waaye. Signalkan rimorku waaye kii hadaayay aydin tusayna autocaraha waaye say la tahay. L'autocaravan non è un rimorchio, ok? Autocaravan non è un rimorchio, ma il caravan è un rimorchio, ok? Vero è. È vietato rimuovere la segnaletica stradale. waa mamnuuc yiri inaan siibno ama aan ka bixino wadada
signalka wadooyinka loogu talagalay vero waaye perché waa mamnuuc. I quadricicli non leggeri a manubrio e con carrozzeria aperti possono essere condotti senza casco. I quadriciclisha non leggeri oo ahayn kuwa fudud a manubrio nooca la dhahay con carrozzeria oo sagxad leh aperta macnaha sagxadoodana ay furan tahay. Possono essere waxaa la wadi karaa yiri condotti la wadi karaa senza casco bilaa koofiyad falso waaye. Bisogna lasciare liberi gli incroci in caso di traffico intenso. Wuxuu yiri bisogna lasciare waxaa loo baahan yahay inaan faarajino gli incroci isgoosmada in caso di traffico intenso haddii ay traffic badan ay jirto vero waaye. Entrando in un centro abitato bisogna tenere conto che può cambiare spesso la precedenza agli incroci la precedenza. Entrando marka aan galayno yiri in un centro abitato meelaha la degan yahay bisogna waxaa loo baahan yahay tenere inaan conto inaan xisaabta ku darsano che può cambiare waxaa la bedeli karaa spesso sida ugu tiraha badan la precedenza isgoosmada degli incroci. Allora, entrando in un centro abitato bisogna tenere conto che può cambiare spesso la precedenza agli incroci spessi. Entrando markaan galayno in un centro abitato meelaha la degan yahay bisogna waxaa loo baahan yahay tener conto inaan ku xisaabtano che può cambiare waxaa la bedeli karaa spesso sida ugu faraha badan la precedenza kala mudnaanshaha agli incroci. Davvero? Su-aashan waa fregatura waaye laakiin può cambiare spesso la precedenza ani falsaan ku dhufanayaa laakiin vero inay tahay macquul. Nell'area pedonale possono transitare allora può cambiarsi spesso la precedenza agli incroci. Waxaa inta badan kala bedelmaya kala mudnaanshaha sida maxaa laga wadaa? Va bene, vediamo. Nell'area pedonale possono transitare tutti i motocicli purché diano la precedenza ai pedoni. Nell'area pedonale meelaha bedooniyaasha loogu talagalay yiri possono transitare waxaa gali kara tutti i motocicli dhammaan motocicliyaasha yiri purché sababtoo ah diano waxay siinayaan la precedenza mudnaanta ai pedoni falso waaye perché non possono entrare. La potenza dei quadricicli non leggeri è sempre inferiore o uguale a 15 kW. Sempre 15. Davvero? Tanno una fregatura che lo è. Inferiore o uguale. Va bene. I ciclomotori non sono soggetti a revisione periodica. Falso è perché i ciclomotori laftirkooda periodica waa laga rabaa. Fanno parte della carreggiata e le corsie di marcia. Fanno waxay ka mid yihiin parte della carreggiatada qayb ka mid ah le corsie di marcia koorsooyinka marshada vero waaye. Il conducente dopo aver posteggiato il veicolo al lato della carreggiata prima di aprire lo sportello deve controllare che non sopraggiungono ciclisti o motociclisti vero waaye. Il conducente darawalka dopo aver posteggiato marka uu baakimo gaariga al lato dhinaca yiri della carreggiata geeska laamigu dhan prima di aprire intuusan furin lo sportello daaqada ama albaabka deve controllare waa inuu control ku sameeyaa che non sopraggiungono si uu xaqiijiyo inaysan maraynin meesha ciclisti baaskiilo o motociclisti ama dad wato mootooyin vero waaye. La strada rappresentata è composta da 4 carreggiate tutte a senso unico. 1, 2, 3. Non 1, 2, 3 carreggiate, non 4 carreggiate. Perché qua una carreggiata è, una carreggiata è, wuxuu yiri marka 4 carreggiate falso è. Ok? 1, 2, 3. I ciclomotori non hanno più di 2 rotte. Ciclomotoriyaashu wuxuu yiri malahan laba taayir wax ka badan falso waaye. Asxaabta qiimaha badan casharkeena waa dhammaynay waxaan fiirinaynaa inta aan qaladnay waxaan filayaa inaan su'aalo qaar aan qaladnay laakiin no matter how we make a mistake we have to move on. Okay.
Allora, hal xabaan qaladnay su-aashaasaan qaladnaan fiirinaynaa mid ay tahay berkee idinkana ma qaldaysiin. Entrando in un centro abitato bisogna tenere conto che può cambiare spesso la precedenza. No, ani falsaan ku dhuftay idina beeray. Su-aalaheena kale waan wada saxnay. Insha Allah waxaan filayaa inaa wax badan aa ka faa'iidi doontiin. Waxaan noo balanaa casharkeena xiga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.